cali guudlaawe oo ka degay magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan ayaa weeyaan maarata qodobkeenna maanta aanu ku dul istaagi doonno oo ahaan doona maarata qodobkeenna koowaad qubanaheenna maalinlaha maanta ay bishu tahay 6 bisha Febraayo 2022 cali guudlaawe ayaa maanta wuxuu ka degay magaalada beledweyne muddo 14 bilood kadib doorashadiisii ama maarata doorashadii boobka ahayd dabcan doorashada lagu tilmaami karee waxyaalihii doorashada u ekeeda asaga ku soo baxay magaalada Jowhar oo ku caano shubtay ninka la yiraahdo Farmaajo ayaa maanta waxay suurta gashay in uu ka dego magaalada beledweyne haddaba waxaan ogeynaa isuwan badan ayaa jira kuwa rag badan oo meesha faa'iido khasaarooyin kala kulmay kuwa maaragta faa'iido ku qaba waxyaalo badan oo nuxnuxo badan oo hore oo jirtay haddaba aan ku bilowno qodobkeennan maaragta Roble iyo sida uu maaragta ugu dhiiqoobay magaalada beledweyne dhowr iyo 10 bilood saan soo sheegnay ayaa waxa ka taagnaa ismarwaa siyaasadeed ay beesha xawaadle ay si cad kor iyo hoosba ugu hadashay oo tiri maaragta inay ka soo horjeedo dhismaha maaragta Hirshabeellada oo Farmaajo dhisay oo abgaalka hogaamiyo sidaas la midana isku darsadeen madaxweynihii caasimadiiba annagoo og awal in cayriinka lagu kala qaybsaday dhismaha Hirshabeelle oo xawaadle la siiyay madaxweynaha halka abgaal ama muduloodna uu qaatay caasimadoodii oo awal sidaas ay ku dhisnayd oo ognahay laba madaxweyne oo xawaadle inay soo hogaamisay ayadoo sidaa la isku ogaa ayaa ninka la yiraahdo xawaadle uu si dhaba oo cad u sheegay oo ciidamo fara badan in badan ay maaragta qaylinayeen in badan ay lahaayeen maaragta ma ogolin ninka la yiraahdo Hirshabeelle oo hogaamiye cali guudlaawe ayagoo si cad u sheegay yiri annaga hoggaanka lahayn maadaama annaga hoggaanka lahayn waxa qalad ah in annaga la hogaamiye caasimadina isku darsadaan haddaba soo ugu dhiiqoobay maaragta meesha la yiraahdo Hiiraan Roble maadaama doorasho ay dawladda Soomaaliyeed ay ku fadhiso 4.5 wax la yiraahdo lagu qaybsaday asagu waa maaragta meesha la yiraahdo waa deegaan doorashadiisii waa meesha uu ku matalo kursiga maaragta ra'iisul wasaarenimo maadaama beesha Hawiye tahay meesha gobolka Hiirshabeellana loo yaqaan ama beledweyne oo asagu maaragta ku matalo man Hawiye ay yihiin waxa maaragta 14 bilood kadib ayuu isku dayay oo horta ku guul daraystay inuu wuxuun ka qabto inuu dadka isku keeno inuu xawaadle la fariisto ayagoo awalba xawaadle maaragta ka qabay haddii la ku roon yahay nabarro hore jiray uga didsana ayaa haddana wuxuu ku guul daraystay in tulkii uu yiraahdo waraanaha meesha idin fadhiyo ra'iisul wasaaraha ku matala soo dhawaada labadiina kooxoodba maxaad maaragta rabtaan ayagoo xataa maaragta isagoo inta ku guul daraystay iyo sabab akhrisan ba xataa bari haduu yiraahdo waxay ahayd inuu maaragta xujada iska rido oo yiraahdo halka aniga shaqo ku mali maaragta maxaa bari markii la weydiiyo yiraahdo dadkaagi ma dhax gashay maadaama aad ku matalayso meeshu dhiilaaday waa maaragta xujada iska ridi lahaa ayuu xujo ayaa ku ogan inta wuxuu joogaa sanad iyo bar iyo ka badan hadduu la ku roon yahay 2 sano ayuu ku sii dhow yahay Hirshabeelle wuxuu ka tagay maaragta meesha la yiraahdo Shabeellaha Dhexe Hiiraan cag ma saarin magaalada beledweyne sidaas la mid ah magaalooyinka go'doonsan buulo burdo ugu soo horeyso maaragta muusan cag maaragta mastagin booqasho kuma sameyn asagoo maaragta gobolada fog oo booqanay sida Garowe oo kale waxyaalahaas oo dhan asagoo awalba ku guul daraystay in tulkii uu si dhaba u matalo ayaa haddana ciidan la diray oo halkan laga diray ayuu wuxuu ka daba diray oo sheegay maalin uu shir u qabtay oo yiri ciidanka halka jira annagu ma ogin ra'iisul wasaaruhu ma oga wasiirka arrimaha gudahana ma oga wasiirka gaashaandhigana ma oga kiin amnigana ma oga intii oo dhan ayagoo saas ay yiri ayaa halka laga gidajiyay ayagoo maaragta arkaya ayaa waxa laga dhoofiyay meesha la yiraahdo goranka aadan cadde kadib markuu shirka jireed qabtay ayuu wuxuu magacaabay gudiyo wasiir ah ayuu yiri maaragta ciidamada soo celiyo halka taga haddaba ayagoo foorara oo waxba hayn maaragta adoo la ku roon yahay ciidiyaha ruugaya ayay ka yimaadeen saakay magaalada beledweyne kadib markay ku guul daraysteen nooc walba markay dadka u maageen inay kiciyaan ay ciidan ay xataa ay ku dijaan si kale kuma diji kara ciidankan ma amraan ayagu mana soo dirsan hadduu la ku roon taagno ma hayaan wax allaala wax laga weydiinayna ma ay jirto maamulka Hirshabeellana hore u sheegay ciidankan in loo soo badiyo waliba iska badaa kuwa hadda la keenay raali ka yihiin
cali guudlaawe waa uu aamuso raalli uu ka yahay maanta kuwii waardiyeynay ilaalinaya amnigii sugayay ayay ahaayeen ciidamada halka laga dejiyo gorgor haram cad maaragta waxaasoo dhan oo halkaasoo jira qodobka keliya ay qaban kareen waxaa weeyaan wasiirada halkaa tegey in dadka deegaanka ay kiciyaan ay hub isugu dhiibaan ay sameeyaan in meeshaas maaragta dad dhibaato fara badan ay ka gaarto meeshaas maaragta kadibna la yidhahdo farmaajo ayaa ciidanka soo diray intiina waa ku guuldaraysteen maaragta dhibaatada ay la dabacsanayaan maaragta dawaa la ku run yahay hiiraan cali guudlaawe iyo farmaajo awal ay ka la yiri waxbaa ka dhex tolan halkaa waxaa weeyaan boogadhayid ayaa ka dhacday in maaragta boogadhayidaasna aduu alla ku run yahay la yiraahdo waa maaragta farmaajo waa isku soo dhawaanayaan in la yiraahdo oo maaragta aduu alla ku run yahay arrintaana halkaana ay iska dhawaansho ay ka soo gaareen oo ah maaragta awal haddii la lahaa guudlaawe looma ogonin halkaa tago farmaajo ma ogola maanta waxaa cad ciidankii uu farmaajo halkaa geeyey inay soo dhaweeyeen cali guudlaawe iyo wafdigiisaba halkaana madmadowgii iyo waxyaalihii jirayna halkaa ay ku baxayaan sidaas si la mid ah qodobkeenna waxaa asagana muhiima in hoos laga xariiqo in farmaajo berri ku ololeynayo inuu yahay madaxweyne dib heshiisiineed maadaama uu heshiisiiyey xawaadlii abgaal ama maaragta isku qowmiyadda halkaa ka kacsaneedba uu soo dejiyo soo dhaweeyey halkaana waa qodob maaragta ololaha uu berri maaragta ku darsan doono waxqabadkiisa ninka la yidhaha farmaajo maaragta aduu alla ku run yahay xildhibaana ayaa halkaa yaalla oo 25 kursi ah 25ka kursina farmaajo jebkiisa ay ku jiraan waxaa berri iyo maalmaha soo socdaba si qarsoodiga ku tegi doona xildhibaanna ka qaadan doona ninka la yiraahdo maaragta ninka la yiraahdo Fahad Yaasiin oo halkaana maaragta aduu alla ku run yahay uu ku maaragta oo xildhibaankiisa uu halkaa ka soo qaadan doona khiyaaray waa in salaamina qodobka xiga intaan ku kulmeen